السلام عليكم أصحابتا qaaliga channelkay kusoo dhawaada maanta waxaan rabaa inaan ila qaybsado insha Allah casho yar oo fudud oo jikada time badan kaaga qaadanaynin insha Allah kariskiisa oo easy ah I'm sure dad badan way yaqaaniin laakiin siday u subsanayeen qof walba different waaye marka ani sidaan u subsadaan ila qaybsanaa insha Allah waxyaabaha ku darooyo waa ujeedin kan waaye tomato paste waaye yan shishiid parsley coconut milk waakaas pinto beans isticmaaloya noocan pinto beans ku fiican cambuulo oo kala duwanaa jiro soo midkaana ugu fiican anyway maraqaan marka laga suubinaa insha Allah huruud iyo xawaaji waaye labadan waakaas laba xabo yaanyo ah kabsar caleen iyo basal ay diyaarsan waakaas waa jarjaray basashii iyo labada xabo yaanyo jarjaray kabsar caleenta hadda digsigii saliid yar ku shubooyaa sida basasha uu dalaco iyo wixii oo dhan waakaas basashaad waxay gududinaa markaas yaanyadii ku daraa laba xabo yaanyo soo jarjaray waasina carafta oo kasoo baxooyba maasha Allah caadi ma aha hadda yaanyada inaa la shiido ma jecli markiisaan camal waxaan jeclaa inaa oo yariiska marka loo gooyo hal qaado iyo bar camal oo yaan shishida ku darooyaasina waakaas sidoo cream camal oo noqdo maasha Allah maraqan qof walba oo yaqaan sida loo suubiyo laakiin isku hal ma aha nin walba sida uu suubinayo marka inaa kan jeclaatina laga yaabaa hadaa baroweysiin insha Allah familkeyga aad ay u jecel yihiin hadda koor si kale u suubiyay oo maasha Allah oo ma ka helin ilmaheyga soo noocan le aan wiligay u suubiyaa long time marka because noocan wax ka fiican ma arkin oo macaan badan dhadhanka oo leeyahay waxaas dhan wixii lagu darooyo xawaajiga hadda ku daray cusbo huruuda ku daraa beefka magic waa ku darsan kartaa haddii rabtid laakiin ma ku darinoyo ani maanta sometimes la ku daraa gobol yar camal basbaaska gaduudka waaye kaas oo parsley ku darooya dryga waxaana waa aragtay meesha uu fuulay intaas isku hadda gasacyadii cambuulada oo karsan waaye that's why 30 minutes nigu qaadanaan idhahooyo or less dinarkan marka ani waxaa jeclahay inaa ka dhaqo cambuulada gasac markoo ku jiro waxyaalaha preservative ay kusoo daraan sida u halaabin iyo waxaas inaa ka dhaqaani iyo waxa kasoo shisheeraya dhan qaar waa ku darsan kartaa darabtid laakiin ani maba jecli maba ku dari because waxyaabihii ku jiro oo sida u halaabin lagu soo dardarayo dhan iyo urki marka waxa oo soo shiira markii gasac sidiis loogu shubo soo waxa fiican laga dhaqo soo nadiif ee lagu shubo maasha Allah waakaas because sauce-kii ma u baahnid waa kan sauce-ka iyo dhadhankii dhan inta ku jira maasha Allah hadda sidaan u barowsiin aad uga heli doontiin ilmihiin waa ka helayiin qumbaha wax yar ku darooya adli qiyaas half a cup camal wax badan ma aha waakaas colorkii isbedela iyo dhadhan oo special oo macaan ah oo yeelana waakaas quruxdiisa ujeedin maasha Allah markaa dhadhami sidaa ka daran oo la cunayo wax yar basala kor oo caraf leh uu yeelaa ma u baahnid inaad ku dartid laakiin hadaa rabtid la waaye kabsar caleenta haday arkayseen waa kan asina wax yar soo jarjaray yariis and then kora ugu daadinooya
waa isku daboolaa insha allah. Kabacdi chickenka haddana suubinaa halka wax oo jikada time badan kaaga qaadanaynin kan waaye maasha allah kariskiisa. Qumbaha wax yarna kor ugu buubinoyaa just a little bit oo caraf sii yeelanayo maasha allah. waa kaas kan waa diyaar, waa daboolaa asina geesa u bixinaa kabacdi chickenka suubinaa. waa kan chickenka laba xabo oo chicken breast oo weyn waaye. cusba ku darooyaa asina, paprika, black pepper ama filfil shiidan sida u taqaaniin. wax yar xawaaji ayaa ku darooyaa just a little bit, wax badan ma ku darooya, everything wax yar ku darooyaa. tuun iyo kabsar caleen waaye kan. chicken kebab waaye soo caraf u yeelaa maasha allah, macaan oo ka dhigaa. olive oil ku daray, saliida oo zeytuunka maasha allah. kabacdi qorigana gelinaa, waa kaas waa geliyay diyaar waaye. hadda u dubaa insha allah. haddaa rabtid inay falanjeerka gasho kartaa oo waqti u haysid waa kaas sidii marinade u noqdo insha allah. falanjeerka markii la geliyo waa kasii macdahay oo ahead of time suubsanaysid chickenkan. saana loo diyaariyaa, falanjeerka la gashtaa 2 saac ilaa waqtiga rabtida ku jirnaana. waa kan hadda chickenkii duduba insha allah kabaab camal. chicken kabaabka iyo beanskan aad isku macaya maasha allah. ilmaha way ka helaan markii la is ag dhigo. waa kanay waqti badan ma qaadanaya sine 5 minutes labada dhinac hadda u kala dubtid ready waaye. waxaan isticmaalayaa rootigan oo carabta pita bread. haddaa rabtid chapati fresh dubo ama rooti ku cun. waa kaas daisy sour cream wax yar kor ugu shubra waaye insha allah. waa kan baaquli yar kusoo shubay daisy sour cream ku darooyaa. ani ma ku dar jirin hore laakiin aad ugu macdaha waa baroweynay. kana waa basbaas Soomaali oo tuun, kabsar caleen, cusbo iyo wax la isku shiido waa basbaaska liin. waa kaas sidaas ugu shuboyaa. intaan hadda isku baroweysid maasha allah caadi ma aha.